Suldaan Suleymaan Cali Ismaaciil suldaankii gobolada Awdal iyo Selel ama galbeed ugu da'weynaa ama suldaankii guud ah anigoo ku hadlaya afka odaya dhaqanka Soomaalida waxaan ka hadlayaa qabaa'il inagu dulman oo dhexdeena ku baaba'ay inaan wixii igaga habboon idhaaho waxaan xaal siinayaa Suldaan Daakir iyo Boqor Axmed iyo Suldaan Nadiif nimanka iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka oo habeen dhaweed isagoo ooyaya aan arkay nimanka waxaan leeyahay horta xaal qaata waa la idinku gafay Soomaali meelay joogtaba waa idinku gaftay dad walaalahooda oo la siman iyo yacni la takoore gabdhaha laga guursan maayo eray ka xun oo dad lagu sameeyaa ma jiro waxaan ku talinayaa in arrintaa laga baxo dadka gabdhaha laga guursado oo cadka la geeyo iyay geeyaan cadkooda la siiyo in waxa laga baxo cadkooda la siiyo iyaan ku talinayaa culimadu inay ka hadashaan ku talinayaa kitaabka Ilaahay wuxuu yiri in laga dhaqmaan doonaya dhaqanka in laga dhaqmaan doonaya haddaan isgarowsan weyno gabay baan ka tiriyay haddaan isgarowsan weyno Soomaali way gubowday haddaan gabar iyo gabooya gabdhaha kala guursan weyno Soomaali way gabowday baan Suldaan waad saxsan tahay markaad gabayada iyo inta ka tirinayso adigu odayda dhaqan oo beelaha gobolada galbeedkana dad Suudaankoogii weynaa da'da baa tahay waa run mudana waxaan way soo jireen adigoo nool waa run maanta way jiraan waay maxaa maanta ku tusay adigoo beelaha gobol laga yaabay inay ka guursan adu leedahay maanta la guursan dadkan maanta uga hadlayso anu maanta kuma ambaraarugin waqtiyo hore oo sadqa la samaysanay baa jiray aniga Axmed Xaaji Bahdoon nimanka weligeey sidaasaan ugu tagoogsanaa jigjiga boqor baan ugu samaynay weligeey sidaasaan uga hadlayay ee wax maanta ii koowa maaha beelahaaga guurma dhexmaray beelaha adigu Suudaanka u tahay iyo bulshadan guurma dhexmaro wali ma isku dhistay ma waa mid aan doonayo in laga dadaalo horena uga qaylinayay maantadana ka qaylinayay Allah haddii arrinta laga bixi waayo Ilaahayna wuu arkayaa kama taga Ilaahay dulmiga kama tago sheekhyada waxaan farayaa oo wax garadka farayaa oo dhalinyarta farayaa nimankaasi waa inala mid waa dad goba waa dad inaga farsamo badan waa dad inaga sanca badan haloo noqdo nimanka xaqooda hal la mariyo haday dawlad tahay haday dadnimo tahayba iyo haday guur tahayba xaqooda hal la mariyaan lahayd nimanka dawladana waxaan leenahay nimanka waajibkooda mariya intii taalka yaa waanu la hadlay dadka waajibkooda mariya idinkana waxaan idin farayaa inantoodu inanteena kama duwana waa isku mid weeyaan Ilaahayna wuu inagu eegayaa dadka cidii laga tiro badan yahay hadii sida loo yeeso Ilaahay kama tago dulmiga murtidaydu waa intaa weey